بسم الله الرحمن الرحيم halkaad naga daawanaysan waa Dansan TV waa mar kale iyo kulan xiiso badan waxa maanta barnaamijkeena aan ku soo qaadan doonaa arrimaha abaaraha ee Soomaaliya ka jira barnaamijkeena maanta waxa martin noogu ah Cabdimaalik Maxamuud Faarax Gaas oo kamid ah dadka u ololeeya abaaraha ka jira Soomaaliya Cabdimaalik waxa ku soo dhawaataa Dansan TV aad uma santahay Faisal iyo akhyaarta kale ee shaqaalaha ka ah Dansan TV sida sharafta la igu soo dhaweyseen barnaamijka maanta Cabdimaalik waxaan la soconaa Soomaaliya inay ka jiraan abaarahaas oo saameeyeen Cabdimaalik waxaan la soconaa in Soomaaliya ay ka jiraan abaarahaas oo saameeyeen meelo kamid ah qaaradda Afrika hana ugu badnaato geeska Afrika ama bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya Ethiopia hadda barnaamijkeena waxaan focus ka saareynaa abaaraha ka jira dhinaca Soomaalida ay degto bal wax yar nooga taataabo wax qabadkiini iyo arrimihii aad u ololeynaysiin sidii abaarahan wax looga qaban lahaa Faisal mar labaad iyo mar saddexaad baa inaan celinaya barnaamijkan oo aad maaragtay nagu casunteen saa sheegtay waxaa jira abaaro aad u ba'an wadankii iyo waxaan ugu daran waxa weeye biyo la'aan iyo kulaylka adduunka ku zaa'idaya oo meelo badan haddeer laga qaylinayo taasi waxay sababtay dad badan inay xoolihii dhaafaan dad badan ay ku barakacaan marka kadib waxaa dhashay fikir dhahaya in arrintaas wax laga qabto sababtoo ah saan ognahay sanadooyinkii ugu dambeeyeyba arrimahaasi way soo laalaabanayeen ka hay-ad ahaan TTW talo iyo tawar wadaag hay-ad la dhahaan ka tirsanahay aniga oo arrintaas isu xilqaantay inay ayadu qaadatay go-aan ay gaareen dadka memberska ka ama xubnaha ka ah arrintaas si loogu istaagay looga qaban lahaa arrintaasna hadda meel fiican ayay maraysaa wax ka qabadkeeda waan la soconaa abaaraha waxay soo noqdaan sanad walba sida macnaha isheeg caadada ah kadib markii dadkii xoolihii ka dhamaadaan ama dadkii ay baaba'aan dunyadooda dhamaato ayaa dadku waxaa ku dhaca wax la laabalkac markaas ayaa waxaa la bilaabaa in la ololeeyo oo macnaha isheeg la carcararo oo lacag la soo aruuriyo inta laga cararo laakiin inta ka horeysa inta abaaraha aanay bilaabanin maxaa inii diyaarsan maadaama aad tihiin macnaha isheeg hay-ad ama urur u ololeeya dadka dhibaataysan dabcan saaro kugu sheegay abaarahan mudday soo socdeen laakiin TTW oo ah talo iyo tabar wadaag waa dad community ahaan isugu tegay oo daafaha adduunka ku kala nool waxaan anaga aan markii hore qorshaheenu uu ahaa inaan ka qabano waxbarashada caafimaadka iyo adeega bulshada sida hadda abaarahan oo kale ama biyo la'aanta marka muddo ayaan arrimahan ku jirnay sanadihii ugu dambeeyey laakiin waxaan weli aan ku jirnaa waxbarashadii kamaynan faaruqin oo iskuuladii iyo waxbarashadii iyo wixii gacanta lagu hayay waa lagu hayaa ka qayb qaadashayna ma dhammaan laakiin waxaa soo baxday biyaha la-aanta ka jirta waddanka kuma filna oo keliya in biyo maanta hore la iibiyo saa daraaddeed ka hay-ad ahaan TTW waxaan qaadanay go-aan ah in la sameeyo farsamo kale oo ka duwan in bal la adeegsado qalab kale oo wax lagu soo saari karo saa daraaddeed waxaan u istaagnay in aan helno qalab aan kula soo bixi karno biyaha ku jira dhulka hoostiisa alxamdulilah arrintiina ilaahay waa noo sahlay dadkoo u istaagay iyo dadaal badan kadib hadda hawshii meel fiican ayay maraysaa qalabkii aan u baahnayna inta badan waa helnay waan la soconaa horta arrimaha Soomaaliya ka jira arrinta ugu weyn waa haraadka biyaha wadankana meelaha qaar waxa yaala riig lagu qoro ama drill lagu qoro eelasha drillkaas oo biyaha dhulka looga soo saaro dadka qaar waxay u haystaan private dadna macnaha ii sheegay ilaa hadda weli maanan arkinin macnaha tabrucaad laakiin saan la socday waxa idinka u ololeynayeen in la helo riig ama drill lagu qodo dhulka kaas oo meelo badan xilliga abaaraha ama dadka u baahan in la gaarsiiyo haddaba arrintaas waxaa yar nooga taataabo drillka qaabka lagu helay iyo driillkii in la iibiyey iyo wixii ka dhiman iyo in diyaar yahay bismillah waa maasan tahay ka hay-ad ahaan TTW waxaan muddo haddeer sanado ah ka shaqaynayna hawshii aan kuu sheegay
biyaha markii hore waxay ku bilaabatay in dadka la waraabiyo, laakiin waxaa soo baxday inaysan soconayn. In la helo riig ayaa laga fikiray. arrintaas anaga ka hay-ad ahaan waxaan u dhisannahay guddiyo kala duwan. marka waxaa hawshaas loo diray guddiga qorshaynta iyo horumarinta. baaritaan kadib waxaa soo baxday qaabka iyo sida ugu sahlan oo lagu heli karo riig. waxaa la baaray meelaha riigga laga heli karo, intuu qodi karo. waxaa kaloo haddana si fiican loo fiiriyey meelaha kala duwan dhulka soomaalida ay degto oo dhan biyaha intay u jiraan. saa daraadeed waxaan haddeer ilaahay subxaana watacaala uu noo sahlay in aanu helnay markaa oonu ogaanay riigaan u baahannahay. kadibna waxaan dalbanay riig ka dheer oo qodi kara inta loo baahan yahay, si haddii xitaa ay ixtimaalaan soo baxdo in marka biyaha ay aada u fog yihiin loo gaari karo. waxaan markaa bilownay inaan hadda aan markaa dalabnay riig qodi kara ilaa iyo 800 oo mitir, adiga 1 kilomitir oo wax yar dhiman. alxamdulilah hadda riigii waa iibinay, wadankiina waa geynay. dhaqaalaha ku baxay riiga iyo gawaarida kale ee la shaqeynaya sida booyada iyo gaariga wiishka leh iyo spare partiga u baahnaa. arrintaas iyo maxay hadda aan ku jirno inaan usoo iibino compressor compressor xoogiisu uu la shaqeyn kara riigaas xooga weyn. alxamdulilah hawsha oo dhan hadda meel fiican bay maraysaa. compressorka keliya ayaa hadda ayaan processkiisa wadnaa oo dalabaadkiisa, sababta waa la kala dooranaya. dhaqaalaha ilaha qayr badan ha siiyo, waxaa dhaqaalaha baxshay dad muxsiniina oo ku nool daafaha adduunka, ayna ku jiraan dadka soomaalida ee degan Soomaaliya. dadka soomaalida ha u badnaadeen oo diasporada jooga oo meel joogaan qurbajoogta oo dhan. waxaa kaloo arrintaas sidoo kale naga saaciday dad aan Soomaali ahayn oo muxsiniina oo isugu jira dad muslimiina iyo kuwa kalaba. processku wuu dheeraa. sala socotay Faysal, anagu waxaan kala joognaa laftayadu dadka guddiga ah adduunka oo dhan. marka waxaa dhacday inaanu meel kastaba aan marnay. sababta aniga laftay haddeer waxaan ka imid safar oo aan wadamada jaarka ah hadda Yurubta nagu dhow aan ka imi meeshaas oo aanu dadkan ugu sheegaynay barnaamijkii wixii ka qabsoomay, xisaab celinna loo sameynayay oo qofkii su-aal qabana oo markaa ka qayb qaatana looga jawaabay su-aalaha uu qabay. arrintii marka haddeer meel fiican ayay maraysaa. waan la soconnaa ii sheeg Cabdimaalik. kolley deegaamada Soomaaliya way kala duwan yihiin. meel macnaha ma dheer, meelaha qaar 100 mitir 50 mitir 60 mitir ayay biyo ku yimaadaan. meelaha qaarna waa meelo aad u dhaadheer oo dhagax dhulka ah oo macnaha ii sheeg ilaa 1000 mitir 1500 mitir in dhulka loo sii galo ay noqonayso. taasoo 1 kilomitir iyo bar 1500 markaan leeyahay saasaan ka wadaa ilaa 1000 mitir waa 1 kilomitir. haddaba ii sheeg riigiga mararka qaarkood way jabaan, sababtoo ah waxay u baahan yihiin tuubooyin. macnaha dhulka qofka markii biyaha la geliyo tuubadaas oo soo qaadaysa biyaha lagu xiraayo, waxay u baahan yihiin qaar mashiinay u baahan yihiin sida macnaha bahalkan diinimada la dhahayo si biyaha awood u samayso. hawshaas hawl fudud ma ahan. markii ceel meel laga qodo wuxuu u baahan yahay dayactir in macnaha laga warqabo oo dadkii kaleeto ay macnaha ogaadaan wixii ka jaba la sameeyo. marka mas'aladiini in aad u samaysiin meel xarun u gaar ah markii isbeerka loo baahdo ii sheeg si degdeg looga heli karo. waa maasantahay haddeer saa hore u sheegtay anaga riigii koowaad oo hadda Soomaaliya la geeyo ma aha. riig kale oo wadanka way jiraan, private ahaan dadka darabana u haystaan. laakiin kan xoogaa waa intuu qodi karo waa ka dheer yahay. Soomaaliyana waxaa la qiyaasaa meelaha Soomaalidu ay degto biyaha ugu fog ilaa 600 kama badna. riigan 600 uu dhaafi karaa sida hadda aan hore u sheegay, ilaa iyo 800 iyo siyaado tegi karaa. intaas kadib anaga spare parts oo container oo 40 feet u iibinay. qalabka uu u baahan yahay oo dhan waa ka taxadirnay. alxamdulillah dad technician oo aqoon u lehna wadankiina way joogaan. qoladaan ka iibsanay iyo technician kale oo consultant ahaan aan la talin ahaan aan maaragtay isticmaalana way jiraan. arrintaas anaga dhib nagama haysto. intaa waxaa dheer
TTW ama taliya hay-adan waxay gudaha ku leedahay guddi qaas u ah riiga iyo howlihiisa oo ka madax banaan hay-adda howlaha kale ay hayso. wuxuu u madax banaan yahay keliya hawshaas inuu qabto meeshii iyo xeradii ay geli lahaayeen hawsha macnaha ii sheeg riiga iyo qalabkan kale oo mashruucan oo dhan loogu talagalay way diyaariyeen, waa la dhigay alaabtii hadda wadankii bay yaaliin. magaalada Gaalkacyo ayaanu geynay sababtoo waa central Soomaaliya. marka meel kastoo hadda Soomaaliya aan uga baahanana insha Allahu tacaala wuu ka dhaqaaqi karaa oo meeshaas ayuu ka tegi karaa. central kan meeshaas ayaan base uga dhignay riigan aan hadda geynay meeshaas ayuuna hadda yaal. riiga marka iyo gawaarida kale iyo dadka ka shaqeynaya iyo xarun baa meesha looga sameeyey. maadaama riiga la gaday qalabkiisana la keenay, riigan ma riig dadka oo dhan ka dhaxeeya mase waa riig company ama hay-ad ama urur gooni ay leeyihiin? riigan waa riig ay leeyihiin dadka uu adeegayo, laakiinse mas-uuliyadda iyo gacan ku haynta waxaa iskale hay-addii soo iibisay. sababtoo riigu ma aha riig cirka ka soo dhacay maaha. riigan TTW ayaa u istaagtay, soo iibisay. wax kastoo u baahan yahayna mustaqbalka lafteedu mas-uuliyaddeeda leh. saa daraaddeed maamulka iyo gacan ku haynta waxaa iskale TTW, nafciga iyo adeegidana waxaa iskale bulshada uu la joogo oo wax u qabanayo biyahana uu rabo inuu usoo saaro insha Allah. Okay, marka mas-uuliyadda waxaa dhahday macnaha TTW. marka dadka baahida gaar hayso macnaha ma haddii u baahdaan in deegaamada fogfog oo degan yihiin inay u baahdaan macnaha in looga qodo ceel, ma dadkaasi meel lacag baa laga qaadaya mase wax free ahaan oo xasanaad ku jira ayaa loogu gargaaraya? waa su-aal fiican weeye. horta su-aashaas su-aal aniga waxaan ku jiraa dadka ku jira guddiga, laakiin saan kuu sheegay waxaa jira TTW waxay leedahay guddi qaasa oo laga sameeyey wadankii, kuwaas oo mas-uulka ah maamulidda iyo gacanta ku haynta riiga. guddigaas waxay sameeyeen shuruuc iyo waddo loo raacayo dadkana oo u baahan in wax loo qabto ama wax loo qodo lagu kala saarayo. shuruucdaas waxaa u siman aniga oo haddeer ka mid ah TTW, qof kale oo aan ka mid ahayn, qof kasta oo baahi qaba. shuruucda waxaa la eegayaa keliya meesha laga qodayo iyo qaabka iyo maxaa ii sheegay qofka qodaya ma private ugu rabaa, ma arrin dadka dhan ka dhaxaysa ayuu wax u qodayaa, ma marka waxaa jira category loo sameeyey. marka qofka raba oo u baahan wuxuu la xiriirayaa guddiga gudaha oo shuruucdaas gacanta ku haya. anaga marka ma dhaafsiisna arrintayadu in aan anagu nahay xubno guddiga ku jira, u adeegaya, u qareemaya in howlahaas ay fulaan. meel kastana cidda markaa joogta ayaan mas-uuliyad ka saarnay. guddigaas oo ka kooban 11 qof oo bulshada inteeda kala duwana ka yimi ayaa jooga oo dad wadanka ku noolna ah. Okay, su-aasheeda ugu dambeysay waxay tahay horta wax fiican ayaa la qabtay. ii sheeg kolle ceelasha waa waxyaalaha ay biyaha wadanka Soomaaliya waa dhibaatooyinka ugu waaweyn maanta ka jiraan saan la soconno. waa waxyaalahan aad iyo aad uga fikiraynay in Soomaaliya ay ku dhaqaaqdo arrimahaasi arrimo la mid ah si abaarahan iyo haraadkan nagu soo noqonayo wax looga qabto. su-aasheeda ugu dambeysay waxay tahay qiimo u go-an miyaa jira markuu qofka ceel qodayo, mase waxaa jira heshiin lala heshiinayo qofka, mase waxaa jira guddiga inay ka gaaraan go-aan? qaabkee ayaa macnaha isheeg dadka ula soo xiriiri karaan deegaamada fog degan oo macnaha aan haysanin ceelal? Faisal Saaro kuu sheegay qiimaha hadda ima horyaalin qiimaha la dejiyey. saan kuu sheegay qiimahaasi waxaa sameeyey oo macnaha gacanta ku haya mas-uulka ah guddiga gudaha ee TTW mas-uulka uga ah. laakiin waxaa jirta arrin caam ah oo dadka dhan inay ogaadaan loo baahan yahay oo ah
ujeedada hay-adan iyo juhdiga dhan oo loo baxshay awoodana lagu baxshay waxay ahayd in dadka u baahan biyaha ay helaan biyo ku filan oo ayaga dhan ka dhexeeya saan kuu sheegay qofka private asaga beertiisa kaga qodanaya iyo meel dad ka dhexaysa haddii loo qodayo ama meel masaajida ama meel publiga haddii way kala duwanaanaysaa wax isku shuruuca ma aha tan labaad wax kasta oo dadka loo soo qareemay ama loo soo iibiyo oo lacag ku baxda macnaheedu ma aha in ay yihiin gratis sababtoo ah haddii gratis la dhaho wixii ma sii socon karayaan haddeer waxaan ognahay ceelasha waddanka lacag aad iyo aad u badan ayaa lagu qodaa waxayna ku xiran tahay bal mitir ayaa loogu dhuftaa sidaan ognahay lacagtaas oo ku xiran haddii 300-400 mitir uu yahay lacag badan oo aad u badan ayay noqotaa saa daraadeed lacagtaas lama mid noqon doonto laakiin anagu ujeedada aan ka leenaha waxaa weeye dadka reer guuraaga ah ee ku nool meelaha fogfog aan biyaha haysan oo maalmaha u dhaxaya inay biyo helaan 30 mitir oo kasta sida qorshahu yahay in ceel laga qodo ceelkaas marka la qodayo qasab ma aha inta dacadka ayaga inta yimaadaan ay yidhaahdaan hanaloo qodo oo waa u baahana laakiin dadka gudaha joogo weli qaramidii ayaa anaga noo socota dad muxsiniin ah ayaa waxay la baxayaan in ceel ay qodaan maadaama ay dadka ceel inay qodaan ay rabaan annaga markaa si hawshiina ay u socoto shaqaalaha riig wuxuu u baahan yahay shaqaalo birtaa waxay u baahan tahay in qarash waxaa jira joogta ah si qarashka u socdo waa in qarashka la helaa anaga markaa weli kameenan daalin in qarimidaasna aan wadno oo aan meelaha dadka ka dhaxeeyana ceelal laga qodo qofka private u qodanayana asagana una lacagtiisa ula baxay laakiin aniga lacag ma sheegi karo sababtoo ah ma ogiba lacagta ugu ana deegaamadii meel ay kala duwan mitirada taas waxaa ugu dan leenahay waxaa weeye dadka xitaa isu gurguuraya marar qaarkood dagaalada maaragtay iyo barbareeda ka dhex abuura biyo la-aanta inay yaraato deegaamada ku taxan oo dhan aagaas inaan ka helo meel walba inaad ceelanka laga furo saa biyaha uga helaan dadka ku nool meeshaas xayawaanka iyo cid maaragtay dadka qaarna markaas suuragal waxaa u noqon karta marka xitaa inay wax beertaan oo markaa ay kaga maarmaan oo dhirtu waxaa ognahay waxay sahashaa lafteedu in roob uu yimaado adrees iyo ciwaan ma leedihiin lain kala soo xiriiro adreeska waxaa weeye hadda magaalada gaalkacyo waxaan rajeynayaa in shaashada aan ku qori doono meesha lagala xiriiri doono ciwaankaas ayaa dadka mas-uuliyiinta companiga magaciisa wax oo dhan meesha lagala xiriiraya qofkii su-aal qaban su-aasha ugu jawaabeynaa laakiin waxaa anaga keliya aan rabnaa inaan dhiiragelino in loo istaago in aan la sugin oo keliya in bini aadan kale ay wax qabtaan ee dadku ayaga ay u istaagaan inay iyaga shaksiyan dadka xitaa haddii dhib ma aha haddii qofka meesha u ka yimi uu wax u qabto laakiin waa inay noqotaa wax bini aadanka iyo dadka meesha ku nool iyo xayawaanku way anfacaya inay yihiin oo aan dhib u keenayn marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in hawshaan ay noqoto howl fiican waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u weydiinaynaa cid kasta oo arrintaas fikir ku lahayd wax kula baxday soomaali cid kasta in ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka u saaro oo maaragtay biyahaas ay ku talagaleen dadka inay waraabiyaan iyo shaqada fiican ay qaybta ka ahayeen ay qabteen oo maanta qalabkii oo dhan waddanka la geeyey magacii looga qaaday oo ahaa TTW-na uu ku yaal qalabka aan meesha geyn oo dhan TTW ayaa ku qoran cid kasto ama hadda meesha uu yar waa gaalkacayo maamulka meesha ka jira iyo dowladda way og yihiin cidda keentay cidda iska leh iyo dadka lacagta loo baxay waxaana meesha ku cad oo sharciga loo sameeyeyna ku cad in uu adeegayo dadka meesha jooga oo dhan iyadoo aan loo kala saarin hebel ayaa kasoo shaqeeyey iyo hebel ayaa memberka laakiin waxay ku xirnaan doontaa si loo soo kala horeeyo xaqan waxaa yeelanaya oo keliya qofka kusoo hormara oo dalbada insha allahu tacaala ilaahay horta ajir xasanaada ka siiyo dhammaan intii ka qayb qaadatay barnaamijkaas tabarcaada ah waxaan leenahay ilaahay ajir miisaankiina nagu saa'iidiyo barnaamijkeenana waxaan kusoo gabagabeynaynaa halkaas kulanti dambe oo xiise leh waxaan leenahay cabdimaalik kusoo dhawo dansan TV mar kaleeto barnaamijka qabateenna waa barnaamij aad iyo aad u fiican oo macnaha isha u ah indho mujtamaca Soomaali waxaan leenahay hore u socda hore u sii socda insha Allah bikhair waxaan leenahay assalaamu calaykum kulan dambe oo xiise leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh